Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibadayda qiimaha leh isku soo noqod wanaagsan. Waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad nabad qabtaan. Insha Allah muuqaalkan kadib waxaan si joogta halkan uga wada faa'iideysan doonaa muuqaalo aan xooga ku saari doono cashiro iyo farsamooyin ku aadan nashqadeynta, suuqgeynta, ganacsiga iyo teknoolajiyadda oo dhammaantood aan xoogaal u ahaa kuna dhex jiray todobadii sano ee ugu dambeysay. Si aan halkan saaxiibo ugu wada noqono, fadlan rukumo channelkan oo subscribe inoo saar, like-tuna waa noo dhiirigelin, wixii aragti ah qaybta commentiga inoogu reeb. Sidoo kale waxaan idinku soo dhaweynayaa inaan ku saaxiibno akoonnada aan ku leeyahay baraha bulshada sida Facebook, Instagram iyo muuqaalkeena maanta waxaan diiradda ku saari doonaa sida loo horumariyo xirfadda graphic design-ka. Xirfadda nashqadeyntu waa xirfadda ugu badan ee xiiseeyaan dhalinyarada waqtidan dambe, waana xirfad muhiim u ah ganacsiyada iyo institution walba. Sidoo kale waa xirfad aad uga shaqaysan karto si shakhsi ah. Muuqaalkan inta uu socdo waxaan uga jawaabi doonaa baahiyahaaga iyo su'aalaha laga yaabo inaad isweydiinayso. Sidoo kale waxaan ku bidhaamin doonaa farsamooyinka aad u baahan tahay si aad u horumariso xirfadda nashqadeynta iyo xirfad walba oo u baahan hal abuur iyo wax curin. Sidee ku horumariyaa xirfadda graphic design-ka? Waxaan kula wadaagi doonaa ilaa 5 qodob oo aan is leeyahay haddaad joogtayso waad ka miro dhalin kartaa ujeedkaaga iyo yoolkaaga ku aadan xirfadda nashqadeynta. Marka hore soo qaado qalin iyo warqad, waxaana isbartaa hadda kadib inaadan kala furin laptop ama computer adigoo aanan ku qorshaysnayn wadada iyo shayga aad nashqadeyn lahayd. Qodobka koowaad, baro oo fikir kooban ka qaado theory of graphic design si aad u kala barato fontisyada noocyadooda kala duwan, colorisyada iyo sida isku maajgareeyaan iyo aasaaska graphic design-ka. Sababtoo ah shay walba ama cilmi walba wuxuu leeyahay aasaas iyo meel laga bilaabo. Haddaadan aasaaska fahansanayn ma noqonaysid professional of graphic design. Kumana dhahayo buugaag badan ka aqri, laakiin waxaa muhiim ah inaad xog kooban ka haysato aasaaska ama bilowga graphic design-ka. Haddii aad kala fahanto adeegsiga fontisyada noocyadooda kala duwan, waxay kaa caawin doontaa inaad kala taqaanid nashqad walba iyo halka ay ku habboon tahay inaad fartaas u isticmaashid. Tusaale ahaan oo kaleente, markaad nashqadeynaysid invitation aroos ah iyo markaad nashqadeynaysid posti oo ganacsi ku aadan, dabcan isku fonti ama isku far uma adeegsanaysid. Waana sababta aan kuu leeyahay baro aasaaska nashqadeynta. Waxaan qaybta commentiga ku dhigi doonaa journals aad ka faa'iidi doontid fundamental of graphic design iyo raadraac walba oo aad u baahan tahay. Qodobka labaad, baro farsamooyinka iyo khiyaanooyinka ku aadan software-ada ugu caansan ee loo adeegsado graphic design. Marka la joogo graphic design, waxaa jiro software badan oo loo isticmaalo, laakiin software-ada ugu caansan ee loo isticmaalo waxaa ka mid ah Adobe Photoshop, Adobe InDesign iyo Adobe Illustrator. Saddexdaas software oo dhammaantood ay soo saarto shirkadda Adobe waa software-ada ugu caansan ee loo isticmaalo graphic design. Software walbana wuxuu ku fiican yahay in loo adeegsado shaqo gooni ah laguna qabto. Tusaalahaan oo kale, markaad isticmaalayso Adobe Photoshop, waxaa inta badan loo adeegsadaa wax walba pixel ah ama RGB ah, sidina sawir ku edit karaysid sawiro badan oo aad isku geygeysto hal sawir ka soo saartay oo kale inaad mock-up-yada u isticmaashid iyo wixii la mid ah. Marka aad joogto Adobe Illustrator, waxaa loo adeegsadaa shay walba oo aad rabtid in vector oo ku noqdo ama shape-ka uusan kaa lumin, sida logo markaad design gareynayso sidoo kaleente boorarka iyo wixii la mid ah. InDesign waxaa loo adeegsadaa shay walba oo qoraaladiisa badan yihiin ama markaad design gareynaysid content qoraalo badan leh sida buugaagta oo kale, shahaadooyinka oo kale, transcript-yada oo kale. Waxaas waxaa loo isticmaalaa Adobe InDesign. Marka waxaan ula jeedaa software walba marka aad rabtid inaad professional of graphic design noqotid, waa inaad taqaanid had walba shaqada aad qabanaysid software-ka ku habboon ee aad ku qaban lahayd. Qodobka saddexaad, fahan oo isticmaal sida loo maareeyo heerarka kala duwan ee muuqaalka nashqadeynta ama waxa loo yaqaano hierarchy of design.
marka la joogo nashqadeynta sawirka waxaa jiro mabaadi' nashqadeyn oo ay tahay in la tixgeliyo. Mabaadi'daani waa kuwa sida caadiga ah kala sooca nashqada wanaagsan iyo nashqada kale. Dhammaan mabaadi'daani waxay leeyihiin xiriir waxayna ka muuqdaan shaqo walba oo si wanaagsan loo qaabeeyey. Haddii aan wax yar falanqeeyno waxa xakamaynta macluumaadka muuqaalka aad rabtid inaad nashqadeysid ama aad soo bandhigtid sida loo muujiyo muhiimadda nashqada. Hierarchy waxaa si fudud loo dhihi karaa waa fariinta aad rabtid in aad client-ka u gudbisid ama nashqad aad rabtid inaad nashqadeysid waa inay noqotaa nashqad si fudud loo fahmi karo, macno ay u yeelan karto dadka aad rabtid inaad ula wadaagtid. Waxaa jiro 3 principles oo base u ah hierarchy-ga marka aad sameynaysid. Qodobka koowaad ee loo baahan yahay in design-kaaga laga fiiriyo waa attractive inuu soo jiidasho leeyahay. Design-ka inuu soo jiidasho leeyahay waxaa qayb ka qaadan karo midabada design-ka oo aad ku salaysay oo kale. Tusaalahaan oo kale waa spacing-ka oo loo udhexeeya elementiga aad isticmaashay. Sidoo kale fontiska sizing-ka aad isticmaashay oo ah sis walba oo bold ah wuxuu ka turjumayaa qodobkaas inuu muhiim yahay. Haddii aad rabtid design-kaaga inuu more professional ahaado waxaad u isticmaalaysaa design-ka haddii u rabtid inuu attractive lahaado oo soo jiidasho lahaado. Second, haddii aad rabtid design-kaaga inuu xiiso lahaado dadka interest gareeyaan waa inaad hierarchy of design nidaamkaas aad isticmaashid. Qodobka saddexaad ugu muhiimsan u isticmaalaysa hierarchy waxay tahay the delivery of message. Fariinta aad rabtid inaad gudbisid. Looga sameynaysaa poster sameynaysaa effect campaign aad diyaarinaysaa social media post design aad sameynaysaa. Hadda fariinta aad gudbinaysid waa inay dhadhan lahaataa. Design-ka aad sameynaysid waa inuu macno lahaado. Qodobka afraad, qodobkan waa u muhiim project walba oo aad ka shaqeynayso. Isticmaal white space oo ah inaad design-kaaga aad ka dhigto mid si fudud loogu fahmi karo ama fariimahaaga si fudud ugu aqrin karo. Tusaale ahaan, haddii aad rabtid inaad product xayeysiiso waa inuu design-kaagu lahaadaa kala sareyn si ay u muuqato qaybta muhiimadda u ah nashqadaada ama xogta aad nashqadeynaysid. Hadda fariinta muhiimka ah ee xogtaada ku jirta iyo fariinta kale waa inay u dhaxaysaa firaaq ama waa inay u dhaxaysaa wax kala soocaya. Haddii ay dhacdo design-kaagu in ay more charming yahay ama aysan kala soconeyn xogta aad design gareynaysid waxay noqonaysaa mid aan lahayn jiidasho aan lahayn. Taasina waxay keenaysaa in fariinta aad gudbinaysay aysan si fiican dadka u gaarin ama si fiican aan loo fahmin. We're going to talk about how to find balance in your logo as a part of the logo therapy sessions. Qodobkan waxaan ku soo qaadan doonaa sida loo balance gareeyo ama loo dheelitiro loogada. Kula wadaagi doonaa ilaa 3 farsamo oo aan isleeyahay haddii aad adeegsatid waad ku balance gareyn kartaa marka aad u baahan tahay inaad logo design samaysid. Farsamada koowaad ee aad u baahan tahay inaad logo ku balance gareyso ama marka aad logo balance gareynayso aad isticmaashida waxay tahay shape walba aad isticmaalaysid ama lakab walba oo aad u sameynaysid logadaada waa inay la ekaato lakabka kale si aysan u kala weynaanin adigoo ku cabir qaadanaya angle walba angalka kale ee ku aadan. Tusaalahaan oo kale haddii aad xaraf G sameynaysid waa inuu xarafkaaga G ku cabir ahaadaa xarfaha kale ee logadaada la xiriirta. Farsamada labaad ee aad isticmaalaysid waxay tahay haddii aad rabtid inaad logo balance gareyso waa in aad koox isku raacisaa hadba 3 xaraf inaad isku cabir ka dhigto. Tusaale ahaan waxaa laga yaabaa typography inaad isticmaalaysid ama logo typography inaad isticmaalaysaa laga yaabaa logadaada ama ka dhigaysid. Sidaas darteed haddii logadaadu aad xarafyo ka dhigaysid ama shapes aad isticmaalaysid ay badan yihiin waa in aad group iskugu xirtaa. Tusaale ahaan oo kale goosaar marka aad sameynaysid xarafyadu sida isku raacayaan oo kale waa inaad isku aadisaa. Farsamada saddexaad ee aan kula talinayo marka aad logo balance gareynaysid inaad isticmaashid waa in aad logadaada u isticmaashaa grid line ama grid logo design. Grid logo design-ku waa farsamada ugu wanaagsan oo aad si fudud ku balance gareyn karto xarfaha iyo calaamadaha aad u adeegsanayso logadaada. Sababtu maxay tahay? Grid line-ku
waa sida mastarada oo kale, waxay ka caawinaysaa shaybyada aad isticmaalaysid inay isku balance garaysan yihiin. waa mid ugu muhiimsan ee aan kula talinayo in designерadu ay isticmaalaan. subhanaka allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.